بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال aniga magacayga waa Ugaas Sheekh Maxamed waxaan ahay nin oo governor u taagan Wajir County maanta waxaan iskugu imaanay maanta inaan ka hadalna ama aan isu sheegna in aan waqti wax aan soo wadnay oo arintii community qowski aan ka dhashay fay oo muddo soo waday process oon isku daynay inaan maaragtay aan candidate ka soo saarno oon ku heshiino inay maanta arintii ideed ay soo afjarantay oo processki ayaan soo wadnay waxay ahayd first application second waxay ahayd appeal labadiba ayaa maaragtay ay suurtagali waayeen maanta waxaan ka xumahay inay arintaas iyada ay dhacdo waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in maaragtay kulli arintaas iyada way socon doontaa muddo kale waqti kale wixii dhacwaan arki doonaa laakiin tii appealki hadda way soo afjarantay marka waxaan rabaa inaan ka sheego ama aan u sheego reer Wajir iyo walaalahay beeshafay beesh dagoodiya reer Wajir kala kulligood inaan u sheego insha Allah taala waxaan gaarnay muddadii aan doonan lahaynay kursi oo ka codsana inay kurino ridaan sidaad ogtihiin muddo hore markay soo baxday vaadhigtay hore sidaan oo kale waa nooc nuumaysay hadda vaadhigta lama gaarin processki ay wali socdo laakiin wuxuu noqday process ayaan lagu qanci karin sidoo yahay marka weegaan idil say kulay Wajarka warqabaan waxaan isku dayaynay inaan maaragtay aniga iyo walaalkay aan heshiina laakiin waxa dhacday in ay dad kale odayaal kale marka wixii dartood waxay noqotay muhiim noqotay in processka hadda aan ku jirno inuu muhiim inuu ahayn waxa muhiim noqotay in balance si kale aan iskugu laabana oo maaragtay laakiin anaga hadda aniga iyo supporterskayga waxaan go'aansanay inaan processkaas hore u wadno oo maxaan ku dhahay inaan kuru doonano inaan reer Wajir u tagna inaan campaign galna in ma taqaana aan hore u socono markii hore waxaan u cindareebaynay family-ga sidaas ogtiin inaan maaragtay aan keenna hal qof aan isku daynay waqti badan ayaan gelinay ilaahay kama dhigin marka hadda waxaan joognaa waqtigii arintii ideed inaan soo afjarna wixii kale oo imaaday ilaahay leeyihiin wixii kale oo imaaday ilaahay leeyihiin laakiin hadda waqtigaan joogna waa ka soo weynay waxgal noo processka asaga marka waxaan rabnaa inaan u shaacina reer Wajir walaalayaal sidaas ogtihiin kulay aniga waxaan nahay nin oo 2017 ay dadka kulli ay sugayeen in 2022 inuu noqon doono nominee family-ga fayga kii fayga extension keedana waxay macnaheedu ay tahay inaan noqon kara iyadana kii dagoodiya inaan noqon kara nominee dagoodiya inaan noqon kara iidoysi iyo Soomaali weyn kulli marka iidoysidii iyada tahay waxa dhacday in la waaya dadkii salaadiinta u dhiibinay arintiideed inay garan waayaan ballantii la qaaday kulli waan wareejinay waxa waay ballantiideed in handana dhab ay ahayd ayaa noola sheegay sabayna nagula xiri xumayna noola sii laakiin ballantiideed in nagula soo baxandana way suurtagali waysay nasiib xumadaas dhacday kadibna wax process oo lagu qanca oo runtii wax gal oo lagu qanca waan soo weynay waxa kamid ah waxaan isku daynay shalay oo proposal bixinay in qorituur aan sameeyno sidaas ogtiin qorituur qof ay dib ku tahay male maxaa yeelay ama aniga helay ama adiga helay laakiin waa la diiday marba la diiday aniga waxaan dareenay in maaragtay meesha sida cadaalad iyo wanaag ayaan loo soconin marka go'aankii aan qaadanay inaan markaan iska dhaafno processka asaga ayaan hore u socono marka khayr Allah si supporterska taageero badan ayaan leeyahay diyaar u ah inaan campaign qaadna diyaar u ah inay kuuru doonaan anigana aan maaragtay aan hore u socdo oo maaragtay howl galna insha Allah taala marka aad ay u mahadsan yihiin marka waxaan leenahay reer Wajir in waxaan rabnaa kulli oraxayni wax baan kugu sheegay mar labaad
كل راديون وحبان إنكي شيء كل تيفين وحبان كشيء كل هالكو شيء قوم بايهت إن أن أتاجرنا هاي رير وجار عدالة دود رير وجار هورمركوت رير وجار سيدي وحكون نقول لهاين وكاونتد أن لوسو نولين لهاي دت كان يسكو جعلان لهاين أيان مارك أن أتاجرنا هاي تي إذا دينا الحوجنا ربنا إن شاء الله تعالى marka waxaan rabnaa inay garab noolo noqdo waxaan rabnaa inay Soomaali weyn oo wajeer joogta inay ogaadaan ninkan walaalkiina inuu u socdo inuu maartay waxin ka dhigo inaad wajeer kor u qaado inuu u socdo inuu u soconin jeebkiisa inuu u soconin mataqaana kaali adiga wax ku noqo iidankana aan isku kiin haleyn kara inaan isku kiin haleyn kara insha Allah taala ilaahayna iidankana howliin hafudee abaara jirta ilaahay naga soo qabta إلى أبارة جت إلهي نقبته إلهي